السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا جو معلي شريف. فيديو كان حاوت الجلد دمان والدين الصوماليين ملكست إجوان خاصة والدين تكونوا الوطن كان UK. فيديو كان حكومي أفر قيود ومهمة وكفى إذا سنكرا قف كستا أودنينا وحبرشة عروتيس. قيب تكوبات سامين إنتل أجي كل هذا هاي سكول هذا حرن وحبرشة عروت هذا. قيب طلبات لابتوب كإدولة عروت سينا يسو عروت هذا حق مقولين. qaybta saddexaad caruurtaada sidee ugu wanaagsan oo ku caawin kartaa inta iskuulaadka ay xiran yihiin. qaybta afraad GCSE-ga iyo A level-ka grade-ka sidee loo bixin doonaa sanadkan. wadamada adduunyada oo dhan waxay raacaan wax la yiraahdo national curriculum ama manhaj ay soo diyaarisay dawladda. manhajkaas waxaa ku qeexan wax kasta oo laga doonayo cunuga inuu yaqaano sanad kasta. sanadka wuxuu ka kooban yahay 3 semester. termka koowaad qeybaha la baraa caruurta, termka labaad qeyb, termka saddexaadna qeyb. iskuulaadka hadda waxay xiran yihiin ku dhawaad 2 bilood waxaana laga yaabaa inta ka dhiman sanadka inay xirnaadaan. taasna saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa waxbarashada cunugaaga. waxaa ugu daran caruurta year 5 ka ah, caruurta year 10 ka ah iyo caruurta A level-ka sanadka koowaad dhiganaysa. sababtu waxa waaye caruurta year 5 ka ah year 6 markay noqdaan next year waxay fariisanayaan imtixaanka loo yaqaan SATs oo muhiim ah. caruurta year 10 ka waxay fariisan doonaan imtixaankooda GCSE. caruurta A level-ka sanadka ugu horeeya dhigatana waxay fariisan doonaan imtixaankooda A level-ka. sidaa daraadeed waxa ay misgareeyeen saameyn ay ku leedahay khaasatan caruurtan. laga bilaabo 20 Abriil dawladda waxay ku dhawaaqday in la caawinayo caruurta year 10 ka ah. caruurta free meal ka qaata oo iskuulka dawladda dhigta waxay xaq u leeyihiin laptop iyo internet free ah. sidee ku dalban karaan? iskuulka cunugaaga u dhigtay la xiriir ayaga ayaa ku sheegi doona qaabka ay ku siin doonaan. cunugaaga hadduusan year 10 ahayn oo laakiin guriga laptop aad haysan ama caawinaad aad u baahan tahay iskoolka cunugaaga u dhigtay la xiriir. iskoolaad badan caawinaad bixinayaan marka sidaa daraadeed la xiriir iskoolka cunugaaga u dhig. routine cunug kasta oo iskool dhigta wuxuu ku shaqeeyaa routine. subaxii markuu cunuga imaado iskoolka imaado ilaa iyo waqtiga iskoolka uu dhameynayo maalintii uu og yahay daqiiqad kasta wax uu sameynayo. sidaa daraadeed routine sameyso sida screen-ka tankaaga muuqata. environment waxa ugu muhiimsan xagga waxbarashada waa environment. meesha wax lagu baranayo meel ceenkee ah waay. hadduu TV halkaas ka shidan yahay ama qof uu telefoon ku hadlayo lagama yaabo cunuga inuu wax barto. haddaad dhahdo cunugaaga xagga fariiso waxaad ka shaqeey waa laga yaabaa inuu ka shaqeeyo laakiin lagama yaabo inuu wax barto. sababtoo ah waxbarashadu waa social activity. la fariisa caruurtaada ka qayb qaada waxbarashada caruurtaada. ka qayb qaadashada waxbarashada caruurtaada kalsooni weyn ayay siinaysaa. inaad taqaano wax uu sameynayo muhiim ah laakiin marka aad la fariisato oo aad weydiiso maxaa sameynaysaa, maxaa ka shaqeynaysaa, subjectiga ma ka shaqeysay, kalsooni weyn ayay u tahay. environment-ga muhiim waay. so environment maxaa ka sameyn kartaa? waqtiga wax la qabanayo TV-da waa la diminaa, computerka waa la diminaa, wax kasta waa la diminaa, telefoonada waa la diminaa. qof kasta waa la fariisanaa, caruurta dhan way wada fariisanayaan, waa laga wada shaqeynaa. qof kasta buugiisa la soo baxaa. haddii xitaa buug akhris ay tahay xitaa waa la wada fariisanaa, dhammaan buug waa la wada akhrin. practice la-aan cunugaaga inuu wax barto aad ay ugu adagtahay. waa aragtay in cunugaaga wuxuu shalay yaqaanay maanta ma yaqaano. sababta waa maxay? sababta waa practice la-aan. practice-na waa ku celcelin no maanta dhan sameynayo, maanta dhan ka shaqeynayo. cunuga markuu practice sameeyo wuxuu practice ku sameeyo waxay gelaysaa long term memory, waxay noqonaysaa qayb asaga ka mid ah. laakiin hadduusan practice sameynin waxa short term memory gelaysaa oo iska iloobaya. subjectyada qaarkooda practice la-aan way ku adagtahay. computer science oo kale practice u baahan yahay, xisaabta oo kale practice u baahan yahay, maanta dhan laga shaqeynayo u baahan tahay. haddii aad ka shaqeynaynin way kugu adkaanaysaa. sleep hurdo la-aanta dhibaatooyin badan ay leedahay. hurdo la-aanta waxay leedahay ilowsho badan, xanaaq iyo koriimo la-aan. sidaa daraadeed cunuga hurdo fiican inoo helo waayo. sidoo kale qofka markuu hurdo habeenkii maskaxdiisa refresh sameynaysaa. qaarna wixii uu maanta dhan sameynayo qaarna waxay galayaan permanent storage, qaarna temporary storage. sidaa daraadeed xusuustiisa inay wanaagsanaato haddaad rabtid caruurtaada hurdo fiican inay helaan waa muhiim. wasaaradda waxbarashada waddankan warqaday soo saartay iskuulaadka ay u dirtay waa loo sheegay imtixaan la qaadayo ma jiro marka cunuga grade-ka lagu siinaa. grade-ka cunuga waxaa lagu siinaa waxyaabo badan. waxaa la xisaabinaa coursework, homework, classwork, mock exams, any other tests oo cunugaaga uu sameeyey. waxaa kaloo la xisaabinaa contribution to the class. buuggiisa la fiirinaya, waxaa la fiirinaya sanadkan iyo sanadka ka horreeyay wax uu sameeyo dhan waxaasoo dhan oo macalinka fiirinaya markaasuu grade-ka bixinaya. wasaaradda waxbarashada waxay kaloo sheegtay
macalinka markuu grade ka bixiyo kabacdi exam boardka way fariisanayaan way xisaabinayaan ayagana waxay sameynayaan marka waxay compare gareynayaan iskooladii kale waxay la compare gareynayaan last year carruurtan asaga camal ah ama cunugaaga carruurta camal ah grade aankee ay heleen waxay fiirinayaan progresska uu soo sameynaya waxaas oo dhan fiirinayaan waxaas oo dhan markay fiiriyaan kabacdi gradeka macalinkana ay fiiriyaan markaasay go-aan gaarayaan gradeka macalinka uu bixiyo waxaa laga yaabaa inay hoos u dhigaan ee dhahaan grade saruu siiyo cunugan ama waxaa laga yaabaa inay dhahaan macalinkan grade hoosuu siiyo cunugan gradeka markaas inay kor u qaadaan laga yaabaa oo cunugaaga gradeka sareeyo oo helo so ha walwalin sababtoo ah hal wax kaliya macalinka ma xisaabinaa macalinka xitaa gradeka markuu bixiyo kabacdi qolada exam boardka hadday rabaan sare u qaadayaan gradeka hadday rabaan hoos u ridayaan marka sidaa daraaddeed ha walwalin iskuulaadka iyo macallimiinta waxaa loo sheegay inaysan kala hadlin gradeka carruurta ay siiyaan carruurtana kalama hadli karaan waalidiintana kalama hadli karaan looma ogola marka ha weydiinin macallimiinta iyo iskuulkaba saas waa sida ay dowladda ay tiri fadlan la sheer garay waalidiinta kale videogan si ay ayagana uga faa'iidaystaan waa mahadsantiin